بسم الله الرحمن الرحيم صاحب يال دلب جروب ayaad ku soo dhawaaneysaan waxaan bilaabnay ama hore u soo bilaabnay ba 10 hore u soo sameynay oo Bible account loo sameystay marka Bible account runtii aad iyo aad loogu dhiban yahay waayadan dambe limitationkiisa batay saas daraadeeda waxaan fiirinay marka inaan pioneer account aan idin barno qaabka loo sameeyo si aan koorsigan hore ugu sii gudagalno marka pioneer account marka aad sameysanayso pioneer account maaragtay horta yani Fiverr marka aad lacag ka shaqeysato ama freelance aad lacag ka shaqeysato waxaad u baahan tahay account aad lacag kula baxdo marka account kan pioneer loo dhaho maaragtay ayaan maaragtay ayaa kamid ah accountada ugu waaweyn oo runtii Bible xitaa aan isleeyahay uu ka sareeyaa oo maaragtay dunida aad loogu isticmaalo international payment service-ka aad iyo aad loogu isticmaalo marka runtii ani ahaan runtii Bible iyo pioneer runtii inkastoo Bible ugu horeeyay marka ugu horeyso aan maqlo maaragtay online electronic bank ama online bankiska laakiin inta badan maaragtay pioneer kana aad u isticmaala oo aan maaragtay lacag igu soo diri jiray maaragtay xalaha markasta lacag igu soo dira maxallahay marka waxaad u baahan tahay horta inaad ogaato horta waa maxay pioneer waa electronic bank maaragtay waa banki internet dhaxdiisa ku shaqeeya oo runtii yani adduunka meel kastana ka shaqeeya Soomaaliya geeska Afrika meel kasta maaragtay uu ka shaqeeya runtii maaragtay Soomaaliya ma ka shaqeeya marka aan dhahno ha runtii aad iyo aad Soomaaliya uu ka shaqeeya wadan kasta ka shaqeeya maaragtay Soomaaliya adoo joogto waa samaysan kartaa waa shaqeysan kartaa waa ku shaqeysan kartaa lacag waa lagu soo diri karaa lacag waa ku diri kartaa bangiga ku xiran karaa runtii IBS bank waa ku xiran kartaa Premier bank ayaa ku xiran kartaa oo mastercardooda iyo waxyaabahooda ku xiran kartaa kaliya waxa laga baahan yahay Swift card inaad bankiga ka soo qaadato ama internetka aad kaliisa Swift code-ka yani maaragtay bank information inaad ku xirato ayaa laga baahan yahay marka aad bank information ku xirato maaragtay bank information marka ku xirato yani maaragtay waxaad si toos ah marka maaragtay u xiran kartaa marka bankiga bank information kaaga ku xiranaysa si toos marka bankigaas maaragtay ayaad lacagtaada kala bixaysaa maxaa la igaga baahan yahay kaliya waxa laga baahan yahay inaad account banki kale oo aad leedahay account banki inaad leedahay sidoo kale waxa laga baahan yahay wax kale oo laga baahan yahay waxa kamid ah inaad passport ama licence ama maaragtay national ID midkood aad leedahay marka yani waxaan rabnaa su'aasha ugu muhiimsan oo maanta aan rabno inaan qabano maaragtay ama aan ka shaqeyno waxay tahay sidee loo sameystaa adoo Soomaaliya joogo waxaad u sameysan doontaa qaabka aad hadda aan u sameysanayo ayaad u sameysan kartaa adoo Soomaaliya joogo wali adoo Muqdisho joogo ayaad sameysan kartaa adigoona maaragtay yani qofna ka caawinin runtii muuqaalkan marka aad daawato adiga isku filnaan doono oo adiga sameysan doono insha Allah adiga sameysan doono maaragtay banki alaala bankiga aad markaas leedahay oo adoo Soomaaliya joogo aad markaas leedahay ayaad maaragtay kana sameysan doontaa kaliya waan isla bixinaa hadda dashboard-ka waxaan galeynaa Chrome-ka tageena Chrome marka aan tagno waxaan ku qoraynaa pioneer ayaan maaragtay pioneer kaliya ayaan waxaan ku qoraynaa pioneer ama pioneer.com ama pioneer adigu sida adigu ku fudud markaasi aniga maaragtay pioneer kulleeto waxaa loo baahan inaad pioneer aad maaragtay website-kooda aad tagto kadibna aad bankigooda iskaga soo diiwaan geliso bankiga kan waa pioneer.com soo qor ama pioneer soo qor adigu kulli maaragtay yani waa ka marka aad yani maaragtay bankiga marka ugu horeyso aad iska diiwaan geliso wuxuu ku siinaa $25 oo free oo ku siinaa waan arkaynaa insha Allah waan iska diiwaan gelinayna anagoo maaragtay step by step u raacayno maaragtay qaabka isdiiwaan gelinta step by step anagoo u raacayna ayaan maaragtay xalahay sameysanaynaa marka soo dhawaada asxaabtayda qaaliga ah runtii waxaan aad u jecelahay inaad ila guuleysataan oo aad maaragtay aan wada guuleysano runtii yani maaragtay online ka runtii waa meelaha ugu fudud runtii hadda lacag laga sameyn karo maalinkii waxaa ka shaqeysan kartaa maaragtay 30 ilaa iyo 50 lacag waa ka shaqeysan kartaa marka yani marka aad lacagtaas 50 ilaa 30 aad ka shaqeynaysid waa mar aad runtii in muddo aad ku jirtay yani runtii maaragtay been yaa lagu sheegin wax maaragtay yani muuqaalkaas daawo lacag ku helaysaa iyo maaragtay website-kaas boqol lacag ku helaysaa iyo 5 qofood u share garay waa xaswaabeen wax kasta waxay u baahan yihiin inaad
dadaasho u baahan yihiin runtii haddaad aragtay yani aniga maaragtay inta lacag oo aan ka sameeyo haddaad aragtay freelancing runtii mar baa dhici jirtay saddexda bilood ugu horeyso freelancing aniga waa ku wareersanaa yani qaab maaragtay anaa nama heli jirin runtii aniga dhalinyarada hadda ila soo xiriirta aad iyo aad ugu caawiya laakiin aniga qof iga caawinayo ma jirin maaragtay youtube oo keliya kala daawan jiray maaragtay marka muddo badan ay ugu qaadatay inaan fahmo runtii marka 3 bilood marka aan waday bisha afraad dhexdeeda project ugu horeeya aan qaatay waxaan soo saayay project ugu horeeya waxaan ku qaatay lacag gaaraysa adiga $65 $65 maaragtay yani aan ugu horeysay aan ka shaqeeyo hal maalin gudahood $65 aan dhahay muddo 3 maalmood gudahood projectiga deadline-kii 3 maalmood oo ahaa marka projectigaas marka aan sidaan u bilaabay marka ilaa hadda insha Allah waan iskaga ladanahay waa tan hadda aan go'aansaday inaan dhalinyarada Soomaaliyeed aan ugu faa'iideeyo si ay yani ayagana ay ugu faa'iideystaan oo ay nala guuleystaan marka haddaad fiiriso quick secure and payment yaa lahaa international payment isku waaye يعني ومعرفة si degdeg ah lacagtaada ku helaysaa ma dunida meel kasta ay ku taalo international payment waa sidaad u jeedo sidoo kale everything you need to pay and get maaragtay wax kasta ayaad ku bixin kartaa waana lacag kasta maaragtay ayaad ku bixin kartaa waana heli kartaa marketplace suuq waa kaga adeegin kartaa platformyada kala duwan marka aad iska diiwaangeliso sign up and in $25 maaragtay iska diiwaangeli hel $25 ayaa meeshan kaaga muuqato marka aad iska diiwaangeliso bankiga akoonkan runtii $25 free ayaad helaysaa marka aan click ku siino meeshaas aan click ku siino ila fiiri qaabka aan maaragtay iskaga diiwaangelinayo kaliya bankigan wuxuu kaaga baahan yahay inaad maaragtay swift account aad maaragtay yani inta aan kora kaaga soo sheegay inaad leedahay oo kaliya uu kaaga baahan yahay wallahi intaasna maaragtay anigu wax weyn ma ila ahan يعني IBS bank account waa kasoo furan kartaa Premier bank account waa ku furan kartaa fadlan naftaada maalgeli oo akoonnadaas mid kamid soo furo si kasta online ka dad ka shaqeynayso waad u baahan tahay IBS ama Premier bank account maaragtay account Mastercard inaad kasoo samaysato waad u baahan tahay si kastaba balse hadda meeshaan lagu weydiin doono Mastercard kaliya waxaa lagu weydiin doonaa account number-kaaga runtii hadda Premier bank haddii aad qof arday aad tahay yani IBS bank ku fudud oo waxay ku soo siinaysaa akoonka caadi ugu furi kartaa $5 lacag oo lagu soo shubo akoon kaliya waa free sidoo kale maaragtay Mastercard-kan $6 $5 ilaas kaaga bixisa hadaad arday tahay oo jaamacad aad dhiganaysid ID card-kaaga geysanaysaa marka waxaan ka hadlaa IBS Premier bank-kan kuleyto aniga si fiican uma aqaani ayadana warbixin waa idinka keenaa insha Allah freelance marka wuxuu ku siinaa afartan qodob ka iskaga diiwaangelinaysa oo kuleeyahay marka affiliate marketer kamid ah individualka iyo online seller iyo runtii mid kamid ah adiga maaragtay yani midka iska diiwaangeliso waa kulli waa iska caadi waa wada isticmaali kartaa laakiin hadda anaga freelancerka iskaga diiwaangelinayna freelancerka iskaga diiwaangelinayna sida aad u jeedo shirkadu weli ayada iska barayso fiiri waxay ku leedahay get paid international clients or freelancer clientskaaga internationalka adduunyada meel kasta ay ka joogaan maaragtay ka hel ay ku leedahay lacagtaada kaga qaado marka aan maaragtay aan click halkaas ku siino waxaa noo soo bixi doono meesha maaragtay oo formka la buuxinaa noo soo bixayo formkan marka aan buuxino waxaa noo xigayo register aan dhahayna register marka aan dhahno horta waxaa noo xigayo waxa loo yaqaano maaragtay in aan magaceena saddexaad iyo maaragtay waxyaabahaas aan gelino meeshaan haddaad fiiriso wuxuu ku leeyahay sorry internetka isku day raalli ahada qadkan waxooga iga yar culus yahay saddexdan qayb marka aad fiiriso tan koowaad get start waaye tan kale contact details waaye security details almost done maaragtay almost done anigu runtii yani horno iskaga diiwaangeliyay labadan qaab maaragtay midkooda iskaga diiwaangelinaysaa individual ama company haddaad tahay company iskaga diiwaangelinay company hadhow waxaa laga rabaa company-gi addresskiisa sidoo kale warqadda company cadaynaysay individual haddaad ahaadana maaragtay keliya individual aan hadda isku diiwaangelinayna horta yani individual isku diiwaangelin individualkana qaabkan aad iskaga diiwaangelinaysaa nuur aadan maaragtay magac meesha wuxuu leeyahay magacaaga geli haddii aan fiirino magaca aadan meeshaan kalena waxaan gelinaa cali soo meeshaan emailku kuleeyahay emailka geliyu kuleeyahay haddana meeshaan ku hooseysa emailka haddana ku celiyu kuleeyahay soo yani
weyn ma ahan qadka iga yar culus ila dulqaata marka runtii mobile asagoo aan ku samaynayno insha Allah waa soo samayn doonaa ma aragtay haddii aan gelino emailkeena kan ma aragtay 48@gmail.com runtii emailkan waa emailka emailkan waa igala soo xiriiri kartaa haddii aad rabto inaad fariin waa igu soo diri kartaa waa igu soo diri kartaa fariinta rabto waa igu soo diri kartaa haddii aad ma aragtay telefoon lambardeeda mid kamid ah aweyso fariin waa igu soo diri kartaa marka emailku weli waan qaldaya sida ujeedo 48 iyo waxaan ka tagay iyo calaamadii ad ayaan ka tagay so emailka markaan ku celino ma aragtay wuxuu leeyahay date of birth marka aan fiirin date of birth marka asaas u taawno date of birth runtii yani waxa waaye waxaan dhahaynaa September so waxa at least adiga 2003 camal noo dheh 2003 marka aan dhahno 2003 marka aan dhahno wuxuu la weydiinaa kabkaagaas hoos ku qoran inaan gelino kabkaaga hoos ku qoran waxa waaye 6 kabkaaga hoos ku qoran waa 6 J kale G capital Y capital so J-da iyo labada J capital inay yihiin aan filaa waxaa iga raacay marka waxaa iga raacay bay ahayd 6 iga raacay J marka aan dhahno runtii wax baan qalday waxaa loo baahay inaadan qaldin haddii aad qalado keliya so this is yani qalad ayaan sameeyey so meesha akoonkan ma aragtay yani meesha bahalkan ayaa horay aan iskaga diiwaangeliyey marka emailka ayaan bedelaa dalab online tan online 14 dalab online 24@gmail.com gmail qaab loo sameeyo kulli waa taqaanaa sida ila tahay gmail haddii aad ma aragtay intaad mar hore iska diiwaangelisay wax kaa qaldameen qaabkan ayaad iskaga diiwaangelinaysaa marka yani markaan fiirino qaabkan haddana keliya waxaad samaynaysaa kan le copy noo soo dheh copy noo dheh control C inta kan kan saan dheh so ma aragtay waxaan sameynaynaa in aan maaragtay meeshaan bast ku dhahno runta keliya waxa uu diiday waxay ahayd captchaga ma diidin wuxuu diiday qaabkaas ayuu diiday aan maaragtay ciwaankaas hore oo aan hore iskaga diiwaangeliyey oo diiday 5 maaragtay R W 5 X sorry W 5 X marka aan dhahno next aan dhahno runtii aad u fudud yahay maaragtay adiga marka aad samaysanaysid intaan oo dhan kuma qaadanayo because of adiga marka aniga hadda adaa ku fahamsiinayaa laakiin marka aan samaysanayo intaan oo dhan kuma qaadanin maaragtay street number waxaan street number hadda adiga marka almuqarram camal iska dheh
هو ما أعرف مكة المكرمة دقني لكن مكة المكرمة مم، هذيك يعني مكة المكرم سو قرالك حتى مسحايو جدك صدنك عمل إسكده ما أعرف وحاك لو دهرا هذا عمل ده هذا مش مو أدرسك ما أدرس بسيرك هذا عمل إسكده أما ديك مدة مركز شكونه شاي أما ميشان تاون كان مقدشو عمل إسكده مقدشو عمل إسكده وقت يعني وسنسي كلا لايو مش بوستال كودكا ودنك جوتيت waddanka Soomaaliya ma ahan postal code ma lahan 252 iskaga dhig laakiin furahaas waddanka iskaga dhig soo ma aragtay inaad lambarkaaga gelisaa lagaaga baahan yahay meeshaan lambarkaaga gelinaysaa meeshaan ku xigto meeshaan lambarka marka aad geliso wuxuu kaaga baahan yahay hadda lambarkaad midalan afar sagaashan iyo saddex lixdan iyo saddex konton iyo saddex waa lambarka ma aragtay yani whatsappka dalab group runtii asagana waa la xiriiri kartaa haddii ay wax kaa qaldamaan ayagaa kula saxaayo runtii wiilal waxaa jooga oo inta badan heegan ku ah whatsappka marka ayagaa kula saxaayo runtii marka aad intaas foomka saa usoo buuxiso meeshaan waxaa waaye in password samayso ku leeyahay password samayso password ayaa samaysanaysaa marka inta passwordkii aad ku celinaysaa passwordkii aad inta gashatay ayaad inta ku celinaysaa runtii ani password iskaga kaysoo qabtay balse passwordkaas ma ahan password kale ayaan samaysanayaa password kale marka ma aragtay marka aan samaysto ma aragtay meeshaan kalena passwordkaan la yidhi sorry adigu meeshaan password ku samayso meeshaan sidoo kale waxaa gelisaa wax kale maaragtay geli aniga uu ii samaysan yahay meeshaan waxaa kaloo gelisaa passportkaaga iyo waxaa kaloo gashay meeshaan passportkaaga geli meeshaan passport haddii aadan haysanin waxaa gelisaa maaragtay national ID adi ID cardkaaga ID card aa haysata maaragtay un ID card national ID iska dheh kadib ID cardka lambarkiis meeshaan geli runta maaragtay yani waxaa gelisaa wax aadan hilmaamaynin su'aal aadan hilmaamaynin geli meeshaan what is your first name of your favorite teacher macalinka ugu horeeya camal magaciisa ama yani saas sameey marka aad saas samayso meeshaan password ku samaysto markaad ku samaysato passwordka usoo samayso maaragtay favorite su'aal oo maaragtay secure ay kugu noqoto soo gasho meeshaan Soomaali wayba ku tahay meesha passport ku ah haddii aad passport haysid passport numberkaaga geli haddii aad passport haysid national ID-ga iyo maaragtay license midka aad haysid meeshaan geli meeshaan date issue passport waqtiga uu dhacayo ma ID waqtiga uu dhacayo geli yani ID waqti la soo saaray iyo waqtiga uu dhacayo geli meeshaan maaragtay marka ay saas tahay marka yani kadib active aad dhehaysaa marka meesha ugu dambeyso almost done waa meesha aad maaragtay banki account-kaaga aad rabto aad inaad ugu xirato maaragtay yani banki account-kaaga ayaad ugu xirnaysaa ani haddaan saan dhaho passportkayga passportka maaragtay passport ayaan haystaa passportka haddaan mar hore ugu samaystay waa hadday saa ujeedeen oo maaragtay yani wuxuu iga diidayay emailka aan hore ugu soo samaystay marka passportka haddii aan geliyo waa xogta ugu muhiimsaneed runtii oo account-ku ku samaysan yahay marka ama ID numberkii haddaan ku celiyo يعني waxba iga sii qaldamay akoonka inuu wax iga sii qaldamo macquule insha Allah isku day sidaan isku day oo waa sameyn kartaa wixii kalena aniga diyaar ku ah insha Allah waxa waa emailkana igala soo xiriiri kartaa aan dhahay emailka kale oo nuur aadan afarkiisida igala soo xiriiri kartaa haddii aysan saas ahaynna waxaad igala soo xiriiri kartaa yani dalab group la xiriiray nuur arlaada lambarkiisa si aad dhahaysaa